shalay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland inuu sii daayay inay jiraan 2 kiis oo maxay ahayd Somaliland ku soo biiray oo ku saabsan xarunka coronavirus oo aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajeynayno inuu inaga hayo dhibaatadiisa inaga hayo sida daraadeed si aynu kor ugu qaadno oo aynu isu ilaalino oo aynu caafimaadka bulshada kor ugu qaadno waxa la farayaa dhammaan mujtamaca in ay mamnuuc tahay meelaha la isugu yimaado dhammaan xaflad oo dham in ay gobolka ka mamnuuc tahay ha yaraato habase weynaatay hudheelada inaan lagu qaban karin wax xaflada aroosyo lagu qaban karin baadhiye lagu sameyn karin xaflada lagu qaban karin seminar lagu qaban karin waxa jirta oo la soo sheegaya inay jiraan malcaamado dib u furay malcaamadihii cidii hawshaas ay ku cadaato waxa la horkeeni doonaa sharciga cidii ku tala jirtaana waxaan imika u sheegaynaa inay joojiso ilaa iyo muddadii ay loo qabtay ee gudda heer qaran ay qabatay sidoo kale waxa mujtamacaan ku wargelinaynaa inay u dhagan nuglaadaan awaamiirta iyo talooyinka iyo wacyigelinta loo soo sheegayo in nadaafadda kor loo qaado oo waxa weeyaan nadaafadda cid kastaaba kor u qaado oo qoyska laga bilaabo oo guriga laga bilaabo oo meherada lagu xigsiyo oo magaalada lagu xigsiyo in loo dhagan nuglaado dadka hawsha ku jira haday ciidanka booliiska tahay iyo haday tahay hawlwadeennada caafimaadka iyo haday tahay hawlwadeennada sanitationka iyo nadaafadda ka shaqeynaya waxa jira oo aan soo ogaanay inay jiraan dad xoolaha qala oo ku qala meel aan munaasib ahayn oo aan ahayn slaughter house-kii ama xaruntii loogu tala galay xoolaha in lagu qalo meel aan ahayn dad ku qala dadka waanu u digaynaa laga bilaabo maalinka maanta halka ka hadlayno ciddii lagu qabto iyadoo meel aan ahayn meeshii loogu tala galay xoolaha ku qalaysa inagu og xaaladda caafimaad iyo xaaladda diyaargarow aan ku jiro ninka maanta waxa weeyaan banaanka wax ku qalaya waa nin ugu tala galay inuu umada sareeyo ninka la sheegay waxaan rajeynaynaa subaxan saaka inuu yahay nin caafimaad qabo ayaan anagu maaragtay filaynaa ama warbixinta baan ku haynaa inuu yahay nin caafimaaday laakiin waqtigii la qaaday muxuu ahaayeen dhiigiisa waa laga yaabaa in xanuunkaasi jiro dadkeena inaynu wacyi gelino waynu u sheegno sida ugu wanaagsan ee arrinkani lagaga badbaadi karo ama lagaga hortagi karo fariin kolley waa intaas ay noogu filan anagu ciidan ahaan booliis ahaan awaamirta laga soo saaray halkan amba horeba loo soo saaray sidii hore baanu u sheegnay waxaanu ka qaadan doonaa roolka nagaga aadan insha allahu bismillaahi kariim cid kasta oo u hoggaansami weydana tallaabada sharciga waafaqsan baanu ka qaadi doonaa ee ka dhaga adeegta awaamirta halkan ka soo baxday iyo kuwii hore looga soo saaray guddida qarankuba soo saartay tallaabaanu ka qaadi doonaa insha allahu bismillaahi kariim marka marxaladii hore ka hortagga way soo dhaaftay marka waxay noqonaysaa in loo diyaar garo wax ka qabashada cudurka marka aynu ka nimaadno marka xarunta dhexe gobolka waxaynu iminka diyaarinay xaruntii haddii dad buka ay yimaadaan lagu daryeeli lahaa shaqaalii la daryeeli lahaa waa la diyaariyey halkii lagala soo hadli lahaa qofka haddii uu qof xanuun dareemo lambarka telefoonka lagala soo hadlayo xarunta heeganka cusbitalka ku taala 7 1 3 3 2 2 weeyaan